بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت وحوين مالين مذو ومالين مذو أبر مذو علن كيني قرن كيني دل كيني بقوا ما أنت وحين فيلين إنا ينو أقونسي فاتسنو أو أنو أقونسي هلنو لكن ما أنت ما ينو أفدين إنا ينو نكو T88 kii innaka inagu dhacayna inuu ku dubis kugu soo celino aad iyo aad baan ugu xumahay inta la sheegay anigu maxaad kuma noqonayo laakiin midun baan idin sheegaya wali baan waxa haweenkan la hadlaya waayo kuwa farta dhexda ka qaniini doona ee hablahooda marka lagu qabsado ee saldhiga la galo ee ay dawladdu u soo saari kari wada xildhibaan u soo saari kari waa taa farta dhexda ka qaniini doonta ee oohinteeda iyo baroorta laga bixi doono waa hooyooyinka waa annaka waa dumarka kuwa hadhowtay inamadooda yar yar waayi doona ee baadi dooni doona ee raqooda laga heli doono saldhigyaha oo maanta loo baaqayo laga heli doona kuwa u ooyi doona waa hooyooyinka hadda sayruuq laynagu soo tuuro kuwa qaxi doona ee caruurtooda dhabarka u rogan doona ee 88 xasuusan doona waa hooyooyinka maanta waxaynu ooyina dhalinyarada baa tahriib wax ka xun ba maanta inagu soo socda saldhigaasu maaha mid ay dawladanu ay u leedahay leexjeclo waxa la doonayaa in xaalufintii ugu dambeysay ay maanta ay qaataan laakiin anu cid kale ma ka naxin shakhsi kaliya maanta anu ka naxay waxaan ka naxay madaxweynaha yaga Axmed Maxamuud Silaanya ka naxay Axmed Maxamuud Silaanya maanta wuxuu istaahilaa inuu magac iyo sharaf uu kaga daadego xilkiisaas ina maamuus iyo wanaag markuu wadankiisa ku soo noqdo lagu soo dhaweeyo istaahila laakiin ma dhacayso maanta marka anu waxaan la yaabanahay lama yaabani dadka madaxtooyada maanta isku urursatay ee waxaan sameynaysa waxaan maanta anu la yaabanahay waa qoyskii Axmed Maxamuud Silaanyo waxa la yiraahdaa haduu ninku aanu miir qabin qoyskiisa uu miir qaba hadduu qoyskiisu miir qabin tolkiisa uu miir qaba Axmed Maxamuud Silaanya hadduu qoyskiisu uu u arxami waayay oo uu qaban waayay ma tol buu waayay ma tol dalkii iyo dadkii ka qabtaa la waayay ma tol baa la waayay garan waayay Somaliland maanta qirinqiir bay ku jirtaaye oo ummadba u soo miliqsanaysa oo nabadgelyadeena maanta cunaysa bal maxay haydeen aynu ka qabanno aynu la hadalno maanta maaha maalin aan anaku dawlad la hadlayno waa dawladii ma jirto dawladii maanta sharcigeedii iyo burburkeedii aynu aragnay maanta waxa meesha haysata waa koox burcada oo aan la garanayn oo arxam garanayn oo sharci garanayn oo nixid garanayn oo dad u naxayn oo gur dumar u naxayn oo caruur u naxayn oo calan u naxayn oo qaran u naxayn oo SNM u naxayn oo cid alle iday u naxaysa aanay jirin waxaanu leenahay saaxil iftiin bay idinka maxahayd furmay markii aad doonayseen waanu garanaynay inaad halka ku socotaan saaxil inaad baabi'isaan waanu ognahay inaad u dhaarsanaydeen waliba qoyska Silaanyaan maanta la hadlay cid kale lama hadlaayo inaad baabi'isaan waad u dhaarsanaydeen laakiin berberi wax go'o lagu qaado way ka weyn tahay horaana loo sheegay maantana kuma dhimanayso saldhig baad sheegaysaa 100 saldhig bal ka soo dhiga wala idinka baa u dambeyn doona beri hore Ingiriisku sheegayna waxay yiraahdaan what goes up must come down wax kasta oo irka u baxa uu soo daadiga diyaaradu way duuli oo wala way soo fadhiisan shimbiri way duuli oo way soo fadhiisan kubadu way laadiyo ilaa halkeebay ka diro way soo fadhiisan xukuumadda Silaanyo iyo qoyska Silaanyo waxaan leeyahay waad fadhidaan waad soo daadiga doontaan way noo berbera